Waa qiso aad iyo aad u murugo badan oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo 6 jir ah oo aad iyo aad u da'yar. Qisadaaseytii oo ka dhacday wadamanka Yurub. Walaalahayga qaaliga ah. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda qaaliga ah waa idin salaamay meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin oo mar kale walaashiin Qruuja. Ugu horeyn hadaa janaalku cusub tahay subscribe saar hadaa hore noola joogto qaybta like naga dhis fariimo waxa qabtaan commentiga noogu reeb. Walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin. Maanta cunto karin maaha gabar walaashayda ah ayaa ila soo wadaagtay qiso murugo badan oo ku dhacday qaybta Instagram-ka ay igula soo wadaagtay. Hadaa jeceshahay qiso sidaan camala oo kugu dhacday Ilaahay niima keeno, laakiin hadaa jeceshahay qisooyinka waa ila soo wadaagi kartiin insha Allah qaybta Instagram-kaygana waxaa waaye mushtaaq cadee insha Allah waa igula soo wadaagi kartiin. Anigana waa soo gudbinayaa si ummadda Soomaaliyeed ay ugu fiijignaato ama iskaga ilaaliso. Ilaahay hana ilaaliyo dhamaanteena. Ilaahay ayaa insha Allah na ilaali doono ubadkana Ilaahay hana ilaaliyo. Waa waxyaabo naxdin leh marka walaalahayga Soomaaliyeed qaasatan hooyooyinka wacyigelin ayay idin tahay ilmihiina gacmaha ka qabsada insha Allah. Ilaahay hana ilaaliyo laakiin dadaal insha Allah dadaal ayuu Ilaahay dhahay waa idin la jiraa. Marka insha Allah seexanina subax caajiska iska qaada ilmihiina iskuulka meel walba geesta ka keensada insha Allah. Dadaal walaalahayga qaaliga gabadhaas abaayada waxay dhahday inaan waxaa rabaa in la sheer gareeyo magaceeda lama sheegi doono insha Allah. Cunugta magaceedana lama sheegi doono. Marka qisaas waxay ka dhacday wadamanka Yurub. Waa gabar 6 jir ah oo Soomaaliyeed. Waxay dhahday gabadheedii nin oo dhaweeye ah ayaa u dhiibi jiray oo ii wadi jiray gaari igu qaadi jiray oo Soomaaliyeed asigana ah oo diris ay yihiin calaashaan waa aamini jiray dhahdaan dhaqsi ay shaqadu ordi jiray aabaheedana sidoo kale shaqo ayuu aadi jiray. Marka waxay dhahday gabadhaas bis ayaa awlaad ka haystay ii dhaweey ayaa dhihi jiray asiga ayaa dhanka iskuulka shaqadiisa aadi jiray dhanka iskuulka agtiisa ayuu ka shaqeey jiray. Marka hore igu dhaweey ayaa dhihi jiray dhahday waa aamini jiray. Markaasii aniga ma ogeyn mar walbo uu ii wadi jiray. Maalmaha kamida ayaa waxaa dhacday in macallimadii soo wacdo ay dhahdo ii imaaw. Markaas ayaa baxay macallimadii ayaa aaday waxay dhahday gabadhaada war ma ka heesaa maya warka ma haayi. Gabadhaada aad iyo aad ay u murugaysantaa mar walbana way oysaa. Marka waa wareystay markaa wareystana waxay ii sheegtay inuu ninka dhaweeyaa ay mar walba gurigiisa ku leexiyo oo na kufsado gabadha laakiin ayada waxyaabay tilmaamay waxyaabo ay ii sheegtay dhahday. Marka sidaas ayaa dhacdo gabadhaada war ma ka heesaa warka ma haayi. Isla markii ay sii sheegayso waa suuxay dhahday markaas suuxay anigoo miyir daboolsan markaas soo naaxane waa yaabay dhahday waxa sameeyay ayaa garawaayay. Marka aabaheedan sida ugu sheegay ayaa ka siwaayay hadda maxaan sameeyaa ayaa leedahay leela taliyo. Qisadaaseytiin dadka qaybta community-ga waxay kugula soo wadaagaan insha Allah ila wadaag ay dhahday aniga wixii talo ah waa siiye adigana wixii talo ah qaybta community-ga ugu reeb walaalahayga qaaliga si aan ugu gudbiyo insha Allah waxay sameey lahayd ay ilaa hadda ka murugsan tahay aabihii wali uma sheegin. Gabadhina dhibaatadaas ayaa soo gaartay ninkina xataa wali ma cilmiina dhihin saas maxaa ka waday meel aan wax ka bilaabo ayaa ka sii leeyahay dhahday. Marka walaalahayga qaaliga qaybta community-ga fariimihiina ugu reeb waa mahadsantiin dhamaan.